kulan wacan daawadayaal halkan waa janalka Hubal News qodobada wararka daawad doontaana waxaa kamid ah nin isaga oo maqandil ay ku xukuntay Puntland oo soo hadlay sheegan arin la yaab leh faahfaahin kala duwanna waxa ay ka soo baxayaan kulan dhaxmaray Muuse Biixi iyo wafdiga Sacuudi Faransiiska adaba kulankooda maxay uga hadleen maxayse tahay muhiimada wafdiga Faransiiska ee u tageen Hargeysa shabakada Soomaaliya oo ku lug leh arrimaha halis ah oo lagu qabtay dalka Mozambique iyo bangiga adduunka oo malaayiin dollar u ansixiyay Soomaaliya qodobada maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa warka janalka Hubal News fadlan daawada hadda nagu cusubtaan nagu soo biro kamid noqo saaxiibada hela wararkan ku baahina janalkan aragtidiina halkaas nagu reeba muuqaalkana sii share gareeya laagtiina waa inoo muhiim wana ku maasantiin daawashadii la socodka warka janalka Hubal News Abdurrahman Shirwac oo Zaid oo ku magac dheer Lahore oo ay maxkamadda ciidamada Puntland ku xukuntay dil toogasho isaga oo maqan ayaa ka hadlay xukunkiisa wuxuuna sheegay inuu diyaar u yahay inuu hor yimaado hay'adaha garsoorka gaar ahaan maxkamadda xukuntay Abdurrahman Lahore oo shan ku ahaa rag lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin ururada Al-Shabaab iyo Daesh ayaa iska fogeeyay eedeyntaasi wuxuuna la xiriiray idaacadda VOA isagoo ku sugan tuulo ka tirsan gobolka Bari wuxuu tilmaamay in dhowr jeer oo hore loo tuhuna la xiriiray inuu ka tirsan yahay kooxaasi balse la iska daayay markii lagu waayo wax cadeema hase yeeshee haatan uu ku maqan yahay miyiga oo hooyadiisa ay ku xanuunsan tahay Abdurrahman Lahore wuxuu sheegay in shaqadiisa ay ahayd gaadiidka karara mustajo ku taala magaalada Boosaaso ee gobolka Bari isagoo la yaab ku tilmaamay xukunka lagu riday iyo eedeymaha loo haysto gudoomiyaha maxkamadda ayaana ninkaas magaciisa ku sheegay Abdurrahman Ciise Axmed Lahore hase yeeshee isagu waxa uu magaciisa ku sheegay Abdurrahman Shirwac oo Zaid oo loo yaqaan Lahore waxaan ahay nin shacab oo lagu xukumay dil cadaalad xumo ayaa la igula kacay waxaan u dhashay gobolada Puntland kama mid yahay Al-Shabaab iyo Daesh si toosa iyo si dadban midna ulama shaqeeyo banaanka ayaan ka ahay ayuu yiri Abdurrahman Lahore ayaa meesha ka saaray inay jirto cid la soo xiriirtay ama ugu yeertay maxkamadda xukunka ku riday hadda waxaan diyaar u ahay buu yiri inaan sharciga hor imaado si cadaaladeeda loo sugo wuxuuna shaaciyay in 3 jeer la xiray iyadoo loo haysto eedeymo noocan balse wax dambi ah lagu waayay ninkaasi ayaana tilmaamay tuulada uu ku nool yahay oo hooyadiisa oo xanuunsan uu ku hayo muddo 8 bilood ah waxay qorsheysan inaan degdeg u imaado Boosaaso oo halka ay joogaan rag iyo xukumay 1986 ayaan Boosaaso ka bilaabay shaqo gaari ah leesin ayaan dawladda ka haysta ayuu yiri Abdurrahman Lahore wuxuuna sheegay in adeega internetka uusan isticmaalin balse dadka soo wacay Boosaaso ay u sheegeen in dil lagu xukumay isagoo sheegay in ragga ku marqaati furay ee la xukumay uusan garanayninba geesta kalena faahfaahin kala duwan ayaa ka soo baxaya kulan dhaxmaray Muuse Biixi iyo wafdiga Sacuudi Faransiiska madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kulan gaar ah wuxuu la yeeshay wafdi culus oo ka socda wadanka Faransiiska kuwaas oo gaareen magaalada caasimadda oo Somaliland ee Hargeysa isla markaasna si weyn loogu soo dhaweeyay halkaasi Biixi ayaa wafdigan oo ay hogaaminaysa safiirka Faransiiska u qaabilsan Kenya kula kulmay madaxtooyada waxayna ka wada hadleen arrimo dhowr ah kulankan ayaa waxa madaxweynaha Somaliland ku weelinaya wasiirka dibadda iskaashiga caalamiga Dr. Ciise Keed Maxamuud iyo xubno ka tirsan madaxtooyada Somaliland sidoo kale xubnaha wafdiga ka socda Faransiiska ayaa waxa qayb ka ahaa la taliyaha dhanka siyaasadda madaxa adeega dhaqaalaha ee bangiga Afrika iyo badweynta Hindiya la taliyaha maaliyadda ee gobolka madaxa wakaaladda horumarinta ee bariga Afrika iyo xubno kale ila ku dhadhow kulankaas ayaana shaaciyeen in labada dhinac diiradda saareen doorashada Somaliland iskaashiga ganacsiga iyo wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland qoraal kooban oo ka soo baxay kulankaasi kadib ayaa waxa sidoo kale lagu sheegay in dhinacyadu ay isla soo qaadeen xoojinta xiriirka ka dhaxeeya Somaliland iyo Faransiiska waxaana kulankan looga wada hadlay qodobo ay kamid yihiin xiriirka ka dhaxeeya labada dal sidii loo xoojin lahaa doorashooyinka ku soo foodlay Somaliland iskaashiga dhinacyada ganacsiga iyo wada hadallada Jamhuuriyadda Somaliland iyo Soomaaliya ee hakadku ku yimid ayaa lagu yiri war ka soo baxay kulankaasi kulankan ayaana ku soo dhamaaday isfaham iyo wada shaqeyn Somaliland ayaana muddooyinkii ugu dambeeyay waday dhaqdhaqaaqyo ay ku doonayso inay ku hormariso xiriirka arrimaha dibadda walow ay culeysyo kala kulmayso Soomaaliya halkaad weli daawadayaal nagala socotaan waa janalka Hubal News ee shabakad Soomaaliya oo ku lug leh arrimaha halisna waxa lagu qabtay dalka Mozambique
booliska dalka Mozambique ayaa magaalada Beira ku xiray 5 qof oo Soomaali ah oo la tuunsan yahay inay xubno ka yihiin shabakad qaabilsan afduubka iyo ka ganacsiga daroogada sida ay boolisku sheegeen 5 qof ee la xiray Arbacadii 22 Juun ayaa sitay dukumiintiyo been abuur ah oo kala duwan dukumiintiyadan ayaana waxaa ku jira 6 baasaboor oo Kenya 13 kaararka codsiga magangeliyada dalka Mozambique kaararka aqoonsiga oo Kenya iyo baasaboorada safarka ee Mozambique booliska ayaana sidoo kale baaraya shabakad rayida oo ku sugan dalka Mozambique kuwaas oo la tuunsan yahay inay fududeeyeen in Soomaalida ay soo galaan dalkaas soona saaraan dukumiintiyada sida uu sheegay afhayeenka booliska intii uu socdo baaritaankan waxaan ogaanay in Soomaalidan ay xiriir la leeyihiin qaar kamid ah hay'adaha dawladda Mozambique kuwaas oo ay u badan tahay inay fududeeyeen inay soo saaraan dukumiintiyada ayuu yiri afhayeenku waaxda socdaalka Mozambique ayaana ka sokow xadgudubka xuduudaha oo ay sameeyeen waxa ay sidoo kale walaac ka muujisay dhaqdhaqaaqa sharci darrada ee dadkan maadaama dalkaas uu la tacaalayo weerar argagixiso waa arin walaac leh sababtoo ah waxaan arkaynaa xaalad argagixiso waxa sidaas yiri afhayeenka waaxda socdaalka dalka Mozambique ayaa waxa ka dagaalama oo weerar dhimasho leh ka fuliya koox lagu magacaabo Al-Shabaab inkastoo aysan wax xiriir la lahayn kooxda Shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya waa hagaagi daawadayaal iminkana waxaanu eegaynaa bangiga adduunka waxa ay malaayiin dollar u ansixisay Soomaaliya maamulka bangiga adduunka ayaa ansixiyay malaayiin dollar oo loogu talagalay Soomaaliya si loo caawiyo dadka ay saameeyeen abaaraha haatan ka jira dalka ee sababay xaaladaha bini'aadanimo ee ka sii darayay Soomaaliya lacagta uu bangiga adduunka u saxiixay Soomaaliya ayaa gaaraysa 143 milyan oo dollar taas oo ku soo aaday xilli ay Soomaaliya u qabto baahi weyn oo ku aadan abaaraha bangigu waxa uu sheegay in mashruucan cusub uu wax ka qaban doono baahida ilaa 20,000 oo qoys sidoo kale lacag kaash oo degdeg ah la siin doono ilaa 338,000 oo qoys iyo 160,000 oo qoys oo iyaguna dhaqaale ka heli doona mashruucan maamulaha bangiga adduunka ee Soomaaliya oo ka hadlaysa taageeridan dhaqaale ayaana sheegtay in muhiimadu ay tahay oo gurmashada dadka ee saameeyeen abaaraha gaar ahaan kuwa nugul ee wajahaya cunayarida sii kordhaysa sidoo kalena waxay intaasi ku dartay inay sameynayaan dadaalo kasta oo lagu badbaadinayo qoysaska Soomaaliyeed ee ku tabaalaysan gudaha dalka xaaladu waa murugo bangiga adduunkuna waxa uu sameynayaa wax walba oo uu ku badbaadin karo kuwa nugul xilligan ayay tiri waxa kale oo ay intaasi sii raacisay waxaan ka faa'iideynaa iskaashi aan la leenahay hay'adaha bini'aadanimada si loo yareeyo xaaladda abaaraha Soomaaliya ayaa xilligan ku jirta xaalad bini'aadanimo tii ugu darneyd taas oo ka dhalatay abaaraha daba dheeraaday ee haatan ka jira qaybo badan oo kamid ah dalkeena guud ahaan daawadayaal wanageynta warkii waad kala socoteen janalka Hubal News fadlan daawade haddaad nagu cusubtaan nagu soo biro kamid noqo saaxiibada hela wararkaanu ku baahina janalkan aragtidiina halkoos nagu reeba muuqaalkan sii share gareeya laagtiinana waa inoo muhiim waana ku mahadsantihiin daawashadii la socodka warka janalka Hubal News 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 News